بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما قلق. وأدين سلام لها قالي أسيدتهن حالتين عافمت كنين عافمت قبتنا رجينا وقت يتايدن كسلامة دي مالن كوتاي مالن وناك تديه بين كوتاي هبين وناك وقت يدين تاي وناك سنادين لولا على مسلمين تودا ما يولبا جوكتين عاو محايدين ودا جانا كان قداونيسين واحد أوفيشال جانال محايدين ودا ولا شين عاو محايدين ودا بس قروح بدن وما شاء الله تبارك الله قصة دعدي ودب وكو دعدي جور ولا شيء كنوا قربها وحن ربا إن قصة عاودين بيامي إن شاء الله تعالى أيدين كشكيو قصة ويدير تهاي قوس أيدين كدقايا إن شاء الله قيب أيدين كسوق لنا دو إلى سبحانه وتعالى قدر هذا جنالك نوع ستين سبسكرايب هذا هرنا لجوكتين أصحابتين كمتين حاجين لنا ويلكم قام فروق سودوات إن شاء الله تعالى يوجفون قريين منك ومنكين إن شاء الله تعالى سودوات ولا لها هنا دافن إن شاء الله دعنا سبسكرايب كنوا سيستين قصة سلطان أيه ودعدي يبر ويل أيه كودعدي قصة دبا قبر يكودعدي ويل قبر يسقورس دي كودعدي إن شاء الله تعالى وحنا جعلنا إيدين بياميو وطن كاني هو يكدعدي قصة ده لكن هذا يرتانو في كسوجين قبر ويلك قدام هذا قربان إن شاء الله تعالى ما قع مر بينا مشى عن كشكنا نكون حيدين شيء إن شاء الله تعالى وهي قصة دي كودعدي ونكتن أمشي دي كودعدي هذا يداود قصة دي بكرتان haddii ay macnaha maxaa la dhihi jiray fikradaada ama ay qaldan tahay ama ay xun tahay qisada koleybo waxaa kasoo dhiibi kartaa fikradaada sidii aad koleybo oo u aragtid insha allahu tacaala commentiga noogu soo reeba insha allahu tacaala hadduu ilaahay yidhaa walaalahayga qaaliga qisada tan sida tan ayaa u dhacday insha allahu tacaala waxay u dhacday qisada insha allah gabar iyo wiil ayay ahaayeen waxay joogeen wadankeeni hooyo ama ay ku noolaayeen ayna ku dhaqmeen ayna ku koreen ayna ku dhashteen insha allahu tacaala gabadh iyo wiilkaba waxayna isku ahaayeen isku dhow oo maxaa la dhihi jiray oo جار أما جيران شدوا كسيسين أما محدرس أسدوا كسيسين كليبو لغة الصومال الفرق بدن تهاي قبل يويل كي مركشة وإس جورسدين وحيس جورسدين وطن كان هايو أي إسكو ميرسين وميركود قدعي لو في ميلو إسكو في عنو ما شاء الله تبارك ما دام إسكو دبيان وجيران إحيان آتي أتنا إسكو تحكي دجيران ويل كي قبل إن ما شاء الله تبارك الله ولا إسكو نكاحي ميركود مش أيو قدعي نكاح هذا مركا ويل كي waxaa usoo baxay maxaa la dhihi jiray banaanka inuu soo aado emergency inuu Yurub aado ama wadamada qurbaha inuu aado ayaa usoo baxday emergency gabadha markuu meersaday wuu kasoo tagay wuxuu aaday wadamada qurbaha visa ayaa u maatay marka gabadhii wadankii uu soo tagay wadankeen hooyo oo Soomaaliya uga soo tagay gabadha marka Allahumma salli ala Muhammad markuu cabaarka maqnaa wiilkii gabadhii marka wuxuu yiri waxaan jeclaa inaa Turkiga ay maadid gabadhii way soo baxday wadamada Turkiga ay soo aaday سيدا بقبض يعني عيد في يعني عياد ونكسن عيد وحي عايز كشقيتان وما شاء الله تبارك الله دتك نعسد وكل فرنة هذا نقدر كذا قبل وحي قف كنعستوله وما شاء الله تبارك الله ومحل وح وكل صعود هي قبل دقائق هيسته وما شاء الله هذا مرك قبل دي ويصاب بحذي وحي إماتي ودنك تركيا مرك إماتي ماشي أي قبل دي ما شاء الله تبارك الله وأقل قلان وذكي قبل دي laba bilood miyaa markay isla joogaan wiilkii wuu laabtay gabadhiina waxay u laabatay wadankii hooyo maasha allah tabaaraka allah markay wadankii hooyo u laabatay gabadhii waxay bixisay ilaahay subxaana wataala wax buu siiyey wuxuu ku arsaaqay wiil maasha allah tabaaraka allah wiilay dhashay markii cabaar haddana ay soo maqneeday waxa uu soo noqotay haddana wiilkii ayadoo haysato haddana waxay usoo laabatay wadanka qurbaha oo maxaa waxay usoo laabatay wadanka Turkiga usoo laabatay ninkiina wuu soo baxiyay wuxuu imaaday haddana Turkiga haddana meeshii haddana ilaahay subxaana wataala wuxuu ku siiyey qeyrkoo ilaahay subxaana wataala uu ku siiyey iyadoo qeyrkii haddana wadato wadankeedii u laabatay gabadhii maasha allah tabaaraka allah haddana wiil kale dhashay maasha allah tabaaraka allah haddana cabaar markii ay soo maqneeday yacni qisada waa kala goodgooya laakiin halahan way israacsan yihiin maasha allah tabaaraka allah haddana gabadhii markay wiil haddana dhashay cabaar markay soo maqnaatay haddana way soo noqotay waxay kusoo laabatay Turkiga Turkiga deganeed haddana ninkii haddana wuu imaaday maasha allah tabaaraka allah meeshii haddana waxay ku qaaday gabar ilaahay subxaana watacaala xaamil uu ku siiyey maasha allah tabaaraka khayr ilaahay ku siiyey gabaray ku qaatay way noqotay wadankeeda u noqotay gabar ayay dhashay marka ninkii maasha allah tabaaraka wanaagsanaa mar walbo gabadhiisu amba bixi jiray ee imaan jirtay wadanka Turkiga ku qaabili jiray ee haddana noqon jirtay wadankeeda hooyo u noqon jirtay markii dambe waxaa dhacday ninkii inaa heebtiisa la waayo sano 5 sano markii ay kasoo wareegatay iyadoo isku safraysay ilmaheeda iska haysatay saddexdeeda ciyaalka ahaay isku korsanaysay maadaama ay cideeda maasha allah tabaaraka allah ay ganacsadoolay iyadoo sidoo kale dhaqdhaqaaq ay haysatay oo maasha allah meherad ama dukaan sidoo kale sina gadan jirtay maasha allah tabaaraka allah gabadhii
waxay go-aan ku gaartay inay maxaa la dhihi jiray dukaankii wixii iska joojiso waxay ku jacbursatay isku keysato waxay ay haysatay ay soo ambabaxda marka waalidiinteedna garab ay ka hesho iyo walaalaheeda ay gabadhii soo baxdo ay soo aado wadamada qurbaha ee goos ayadana ku gasho marka wadanka qurbihii ee tagtay gabadhii maasha allah tabaarakallah 3 cunugay u haysaa markaa 3 ay haysaa maasha allah tabaarakallah saddexda iyadoo haysato 2 wiil iyo 1 gabar ay soo baxday markii dambe markii 5 sano ninka heebtiisa la waayo marna biilka soo dhiibaayo marna uu soo dhiibaynin wiil Soomaaliyeed si u toosan yihiin dad baa labo amba ayada fikradoosi xun micnaha markaaseti uu isticmaalo oo markaaseti haday naagta ilmo badan ama maxaa la dhihi jiray ciyaal ba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka siiyo aaba isgadiiba hadii aan fiiriyay marka maasha allah tabaarakallah gabadhan way baxday qof waxay aad maasha allah kartila Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u ziyaadiyo Turkiga ayay aaday gabadhii waxay Turkiga andina wadamada qurbaha ay soo aaday gudgoosay ku soo baxday wadamada qurbaha markay ay timaday ayadoo 6 bil meelahaas ay joogto oo ninkii heebteeda uu ogaaday inay wadankii soo gashay qofkii ayuu ogaaday markuu ogaaday ayuu naagtiisii ileen waayay ama gabadhiisa xaaskiisii uu qaban waayay wuu soo raadiyay ninkii markii uu soo raadiyay muddo si la isaga dabaqadooma qoftan waxay tiri ilaa ani ima soo gashid يعني maadaama ani ilmihayga meesha nagu dayacday wadankii hooyo in naga tagtay waxba aan noo qaban weyday maxaa la dhihi jiray gadaalihi dambe iska bedeshay yani yadkuuma yani camal isticmaashay marka gabadhii waa laga xoog badiyay waalidiinteedii maadaama ay jaar ahaayeen ehelkii ninka iyo ehelkeedii aad iyo aad isku fiicnaayeen gabadhii waa laga xoog badiyay maasha allah tabaarakallah adiga waa loo duceeyay waxaa la dhahay ma anficayso micna anaga waalidiintaadan nahay naga qaado maxaa la dhihi jiray ducada aan ku wadno labadii reer marka dhaheen sayilay qofkaan ay maxaa la dhihi jiray abu ciyaalkaada waaye ama ilmahaada aabahood ma anficayso sheekada aan wadide bal naga aqbal sidii iyada gabadhii markaas seetay naagna iska calool jilxan tahay saadan dumarna aad iyo aad calool jilcanna anaga ma naqaan inaa maxaa la dhihi jiray cadkoosano marka maasha allah tabaarakallah sidii ninkii iidi iskugu noqdeen maasha allah tabaaraka ebel maysan isfurin laakiin ay roor ku yeeshteen ay guri weyn ku sameysteen ay guri u habeysteen ay iskula noolaadeen marka gabadhii markii meesha ay sida iskula noolaan hataa 2 cunug bay dhashay hadana maasha allah tabaarakallah 2 ciyaal oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala siiyay marka ninkii saas marka ugu noqotay 2 ciyaal siiyay ee aban 3 ay haysato 5 iyadoo haysato waji kale hadana la imaaday waji aad iyo aad wajigan ka xun ayuu la imaaday marka adiga daawada haday kugu dhici lahayd taladaas ay taam tas lagu sameeyay lahay maxaa sameeyay lahayd qisada aad u dheer tahay aad ayaana maxaa dhihi jiray goos idinka dhigaya insha Allah ta'ala sidii micnaa u fahantiin ana maxaa dhihi jiray qof walba oo dumar ah rag mar walba dumarka uu dulmiyaa rag wanaagsan maxawana dhalnay weena la dhashteen ma jeclin rag lagu xadgudbo barda anaga dumar ayaana in lagu soo xadgudbo ma ogolni marka gabadhii saas ayaa ku dhacday ha ku dhacda xumaayado 5 ciyaal haysato haddana maxaa la dhihi jiray ninkii wajiga oo la imaaday marka insha Allah ta'ala qisada wajiga kale inta uu qofkii la imaaday waxaan jeclaa inaan qayb kale idinka keeno oo Ilaahay yiraahdo intaan had idinku soo talagalay marka hadii adiga kugu dhici lahayd qof wanaagsan ay isku barateen wanaag isku heyseen meel wada dhaqanteen ay isku dagantihiin haduu saas kugu sameeyo adi maxaa sameey lahayd daawada kala idinka baahanahay gabadhaas marka waxay leedahay maxaa sameey lahayd idinka asxaabta igu xiranay rabtaa inay talo la sameysata ama talo ay u keenaan kadib markaas ayaga qof walba oo ra'ligiisa intuu kasoo dhiibto commentiga noogu soo qoro halaas videogeena maanta ku eg yahay inta dib u kulmi doono waxaa idinka tagayaa anoo xiriir official channel والسلام عليكم ورحمة الله تعالى فيديو وحيقو أنا وعافمات قبنو يدينكو عافمات قبتي لا سبحانه وتعالى دب إنه كل ميو باي باي ولا لها قالي